بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa bogga warbaahinta ururka xoojinta qaranimada Soomaaliland. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabaa inaan si kooban dadweynaha ula socodsiiyo halka kan waxaan ku joognaa hoteelka Leeyahay Kambinski ee magaalada Nairobi ku yaala. waxa halka kan marayay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynuhu wuxuu casuumad رسمي كهلاي مرتقات رسمية مدحوينها دلك كينيا وهو كنياتا وحنا كل سعودي وفتي بلارنو لو وسير أي كتيران وسير كأربعة جدها وسير كديجانك وسير كحيث مالقشية وسير كعافماتك يعني جو وسير كأربعة دبدة سبلارنا يعني هل كان لو جسور ويجي دولة كينيا عاد وديار جرودي هالكا سبلارنا وديار تايم سودو سبارنا كلا ناي وحنا نرجع ودلك كمسكي دولة كينيا يو دولة جمهورية الصوماليلاند waxay wada yeelan doonaan wada hadallo fara badan iyo iskaashi arrimo badan oo iskaashi inay ka wada hadlaan berrito ayay labada madaxweyne ballansan yihiin dabeedna halkaa waxaa ka bilaabmi doona wada hadallo ay wada yeelan doonaan dhinacyada kala duwan wasaaradaha iyo maxaa madaxda dawladda arrimaha badan ee labada dal inay iska kaashadaan u qorshaysan wafdigu maanta galabta nasasha ayaa loogu talagalay berritana madaxweynaha labada madaxweyne ayaa isarki yeelanaya halkaasayna ka bilaabmaysaa wada hadalladii iyo in la iska brief gareeyo wixii hadba qorshayaal ay jiraan. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا ما أنت ودي شيء وح مجال نيروبي يبي وفد بلارن وهجامين يو مدحونها جمهورية الصوماليلاند مدن مصبيح عبدي وفد جام مدحونها أو كل مرتقى كهلا المدحونها ذلك كينيا وهرو كينياتا وحالكن شوف دون المدلبة إلى سطح إشاعة وفد جام حمانة إربط كوسو دوي وزير كبيرها بيتمونيا وزير الدولة هرمها تبدأ أبابنا نموامبي iyo مسؤولين kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda muddadan uu waqtigu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta ugu soo sareysa dalka madaxda kale ee caalamka iyagoo halkan saldhigoodu yahay insha Allah waxaan rajayn doonaa wixii warbixinaad dambana inaan dib idinku soo gudbino hase yeeshee maanta waqtigu kulamadooda wuxuu ka ekaa uu qado soo dhaweyn iyo kulamo intaan ku ayuu ahaayeen wixii dambe insha Allah iyo warbixinta dib idinku soo gudbin doonaa.